jimco wanaagsan kulanti wacan dhageystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa 10 bisha Luulyo sanada 2020 arrimahan barnaamijka duhurnimo idinkugu heynana waxa kamid ah Mareykanka oo bogaadiyay xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan hadaba arintaas maxay ka dhigan tahay Mareykanku uu tusayo adduunka intiisa kale inuusan xiriirka waxba ka qabin taasoo dan weyn ugu jirto Soomaaliland iyo Taiwan ba oo ay ku kabsbanaynin ama qolaad dhanka Mareykanka kaga timaada marka runtii bogaadintaasi xiriirka wax weyn bay u taraysaa shirkii Dhuusamareeb ee lagu waday in maanta ay yeeshaan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo berri dib ugu dhacay xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha oo si xumaanaya una qabateynaya isdhaafsanayaan iyo Koonfur Afrika oo shaacisay in tiradii ugu badnayd maalin qura ay fayraska corona ay diiwaan gelisay barnaamijka waxa wada jir u soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dimbil iyo Xasan Cali Geelaan uga Cabditaah Ibraahim Cagayrna oo la socodsiinaya balse marka hore waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Cabdiraxmaan Cali Dimbil aad mahadsantahay Cabdifataah Ibraahim Cagayr sharci dejiyayaasha dalka Filibiin ayaa u codeeyay in warbaahinta ugu sarreysa dalka hawada laga saaro arrintaas oo loo arkay in weerar lagu yahay xorriyadda saxaafadda warbaahinta ABS-CBN ayaa bishii May markii ugu horeysay lagu amray inay joojiso baahinteeda kadib markii lagu soo eedeeyay inay si cad uga soo horjeedo madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte مسؤولين كوريا كونفرنس ayaa faahfaahin ka bixiyay qoraal raali gelin ah oo ka tagay duqa caasimada Seoul Park Won-sun oo loo maleynayo inuu maalintii shalay ahayd uu gacantiisa isku dilay warqadan ayaa waxa ku qornayd inuu yiri waxaan raali gelinayaa qof walba ay ku jiraan qoyskayga balse waxa uusan xusin kiis tacaddi galma kaas oo la bilaabay saacado uun ka hor intii aan la ogaan dhimashadiisa warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa sheegaysa in ugu yaraan 140 qof ay dhinteen ama la leeyahay kadib maalmo ay fatahaada aad u weyn dhacday waxa sidoo kale la sheegayaa in dad ku dhow 300,000 oo qof laga soo daadgureeyay laba gobol oo bariga dalkaasi ku yaala booliiska dalka Hindiya ayaa toogasho ku dilay nin burcad ah maalin uun kadib markii la qabtay saraakiishii booliiska ee uu dilay sideed ka mid ah saraakiisha booliiskan ayaa isbuucii hore si gaadma ugu dilay markii ugu horeysay oo ay isku dayeen inay qabtaan ninkaas ugu dambeyn madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waraaq hore oo diray waxa uu ku xoojiyay inuu khadka telefoonka kula hadlo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo ku booriyay inuusan ku xadgudbin dhulka Falastiin waxa uu sheegay inay ku hor imaanayso sharciga caalamiga isla markaana ay khatar gelinayso suurtagalnimada xalka labada dawladood oo aasaas u ah deganaansho iyo xasilooni waarta oo dhexmarta labada dhinac waa Falastiin iyo Israa'iil Cabdifataah wararka caalamka ee BBC waa nageenta aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Cali Dimbil ayuu kaasi ah wararka caalamka la socodsiinaya halkaad kala socotaan waa BBC dhageystayaal jeer garooba qabaha kale barnaamijka aynu ku bilownay dawladda Mareykanka ayaa waxa ay Taiwan ku bogaadisay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay kala samaysatay jamhuuriyadda gooristaageeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland fariin la soo dhigay barta Twitter-ka ee golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka ayaa Taiwan waxa lagu tilmaamay inay tahay goob iskaashi weyn ee kala dhaxeeya Mareykanka safiirka Shiinaha ee Soomaaliya iyo dawladda Muqdisho waxay cambaarayeen talaabadaas lagu dhawaaqay bilowgii bishan dawladda Shiinahana waxay sanadihii ugu dambeeyay dalalka Afrikaanka ku boorinaysay in xiriirka u jiraan Taiwan faafaynta warkana waxa isku soo duwayna la socodsiinaya Faarax Lamaane hadalkan uu Mareykanku ku taageeray in Taiwan ay xiriir la yeelato Afrikada bari ayaa waxa uu yahay mid toos uga hor imaanaya kii uu toddobaadkan sii dhamaanaya jeediyay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhao Lijian kaasoo sheegay in Shiinuhu uu ka soo horjeedo in Taiwan iyo Somaliland ay yeeshaan wax isdhaafsi rasmi ah hadalka Mareykanku ku taageeray Taiwan faahfaahin badan ma xambaarsanayn waxa kaliya oo lagu sheegay inay arrin fiican tahay in Taiwan ay sare u qaaday lugta ay ku leedahay Afrikada bari xilli ay baahi weyn jirto isla markii uu kulanku dhex maray wakiil ka socday Taiwan iyo madaxda Somaliland ayaa waxa magaalada Muqdisho iyana kulan ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo danjiraha Shiinaha u fadhiya magaalada Muqdisho kaasoo sidoo kalena la filayo inuu tago magaalada Hargeysa wararan la xaqiijin waxa ay sheegayaan in qorshaha heshiiska wajiga labaad ee Taiwan iyo Somaliland ay qayb ka noqon karto in Taiwan ay saldhig military ka samaysato ciidda Somaliland ayadoo Shiinuhu uu horeba fariisin military ugu lahaa dalka Djibouti tallaabadaas oo ah arrin aan farxad gelin doonin Shiinaha
oo u arka Taiwan in qayb ay ka tahay dhulweynihiisa. arrimaha ay ilaa iyo hadda ku heshiiyeen labada dhinac ayaa sida lagu xusay barta wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan waxaa ka mid ah in la iska kaashado dhinacyada kalluumaysiga, beeraha, tamarta, macdanta, caafimaadka, waxbarashada iyo tiknoolajiyada. aad ay u mahadsan yahay Faarax Lamaane warbixintaas ayuu nala socodsiinayay. haddaba hadalkaas Maraykanku muxuu u horseedi karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee cusub ee Taiwan iyo Somaliland? su-aashaasi kuwo kale ayaan weydiiyey ayaan Maxamuud Canshuur oo hore u ahaan jirtay wakiilka Somaliland u qaabilsan dalka Ingiriiska. horta Somaliland iyo Taiwan muddo dheer bay xiriir lahaayeen dhowr iyo 10 sanadood haddayba 20 ku dhawaad ahayn. xiriirkoodu wuxuu ku ekaa maaragtay dhanka aqoonta iyo inay dhalinyarada reer Somaliland dhankaas waxbarasho u aadaan. runtii iminkana inuu xiriirkii la sii adkeeyey oo xiriir siyaasi isku bedelay iyo mid diblomaasiya wax weyn bay uga dhigan tahay Somaliland iyo Taiwanba. China iyo Maraykan meeshii kala taagan yihiin cidina ma seegana oo arrinta hore loo wada ogaa inuu bogaadiyo laba mid way noqonaysaa. ugu horeyn horta ugu muhiimsan waxa weeye inuu Maraykanku uu tusayo adduunka intiisa kale inuusan xiriirka waxba ka qabin, taasoo dan weyn ugu jirto Somaliland iyo Taiwanba oo ay ku kabsbanaynin colaadka dhanka Maraykanka kaga timaada. marka bogaadintaasi xiriirka wax weyn bay u taraysaa oo maxaa la yiraahdaa siyaasadda arrimaha dibadda markay dawladda hadasho waxay u hadashaa inay maaragtay mowqifkeeda siyaasadeed iyo meeshii taagan tahay ay weydiiso inta kale. maxaa Somaliland uga iman kara marka labadan quwadood ee isdiidan ee Maraykanka iyo Shiinaha inay dhex gasho? والله وحساس uga iman kara ma jirto oo mataqaana xiriir taxana ah oo Somaliland ay la leedahay China aba yaraatay ma jirto. hadii xiriir jiro xiriirka Maraykanka jira China badana waxay wadamada Taiwan la saaxiibka ay ku cadaadisa dhanka dhaqaale. marka xiriir dhaqaale oo Somaliland iyo China ka dhaxayna ma jirto oo dagaalku waa dagaal qabow waa dagaal dhaqaale oo wadan walba Taiwan xiriir la lahaa dhanka dhaqaalaha maaragtay xiriir dhaqaale la yeelatay halkaasina ku burburisay waxa la yiraahdaa xiriirka Taiwan dawladaha si la lahaayeen. laakiin Maraykanka laftigiisa soo ma muuqanayo in dhinacan Taiwan oo kaliya uu danaynayo oo dhinaca Somaliland uusan xoog badan saarayn? horta xiriirka ay Maraykanka iyo Taiwan wada leeyihiin baa ka qoto dheer ka Somaliland iyo Maraykanku leeyahay. sidaad u ogtahay baad wadanka Taiwan waa wadanada wuxuu ku jira adduunka ugu dhaqaalaha fiican, wadamada adduunka ugu baasaboorka wanaagsan wuxuu ku jira wadamada. marka halka waxay ka tusaysaa xiriirka Taiwan ay la leedahay caalamka intuu leeyahay iyo maaragtay markii Somaliland Taiwan noqoto Taiwan baa ka xiriir dheer la leh Maraykanka. marka haddii saaxiibtinimada Maraykanku inuu u bogay Taiwan inay la xirato Somaliland taa macnaheedu waxa weeye ogolaanshiis ma ay siinayso Taiwan iyo Somaliland ba inay kulleyba iyagu ay taageersan yihiin xiriirka wanaagsan ay Taiwan la leedahay inay mid la yeelato Somaliland. marka Somaliland ma heli kartaa waddo ay labada dhinacba isaga ilaalin karto Maraykanka iyo Shiinaha ayna ku badbaadi karto danaheedana ay ku gadan karto caalamiyan? Somaliland xiriirkeeda caalamiga ah UN to kale member kama aha oo diplomatic pressure China ma saari karto mid dhaqaale bay saari kari lahayd kaasina uma furna oo xiriir dhaqaale ma laha. kaliya runtii ay China sameyn karto sida iminka sameynayso waa inay Soomaaliya soo ciyaarsiiso. awal bad waxa la yiraahdaa Somaliland iyo Soomaaliya meeshii kala taagnaayeen siyaasiyan wala ogyahay oo wax weyn oo maxaa la yiraahdaa dhankaana ka qaban karto ma jiraan oo Soomaaliya iminka way isticmaashaa. taasi waxay ahayd ayaan Maxamuud Canshuur oo khadka teleefanka ugu warmaysay. bal markana Facebook aan sii fursada qaar kamid ah dhageystayaasheena ra'yigooda halkaas kaga soo dhiibtay. Maxamed Yaasiin Ibraahim oo jooga Baydhabo wuxuu leeyahay waan bogaadinayaa waan soo dhaweynayaa bogaadinta Maraykanka uu bogaadiyay xiriirka Somaliland iyo Taiwan waana arrin farxad gelinaysa oo shacabka weynaha Somaliland talaabadaasina waa mid u horseedaysa Somaliland dhanka horumarka. hase yeeshee Xamdi Saalax Muuse Saalax oo joogta baran waxay leedahay Maraykanku inuu bogaadiyo xiriirka uu kala dhaxeeyo Taiwan iyo Somaliland waa mid siyaasadaysan waayo Taiwan waxa uu khilaaf siyaasadeed kala dhaxeeya iyaga iyo Shiinaha iyo Maraykankuna xiriirkooda ma fiicna. sidaa daraadeed waa in uu Maraykanka taageero dal kasta oo ay Shiinaha khilaaf uu kala dhaxeeyo.
saacaduna haatan waxay ku sii siqaysaa 2:10 waqtiga bariga Afrika bal markana dhanka iyo magaalada Dhuusamareeb halkaas oo lagu waday maanta inuu ka bilowdo shirweynaha ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada ee Soomaaliya iyadoo dhammaan madaxda shanta gobol ee Soomaaliya ee dowladda federaalka xubnaha ka ay halkaas joogaan hadaba shirkaasi dib ayuu dhacay maanta waxaana dib loo furi doonaa maalinta Britaaниya iyadoo maanta Jimcaha ay nasan doonaan madaxda halkaas isugu tagtay khadka telefoonka ayaan hadaba goordhow kula xiriiray Nafisa Xirsi Oogle oo ah wariyad degan magaaladaasi shirka Dhuusamareeb maanta xaaladiisu waxa weeyaan mid iska degan waayo ma uu bilaabanin kii weynaa ee loogu talagalay madaxdu inay isku hor fariistaan furitaanka loo sameeyo laakiin hadda waxaa socda shirar gooni ah oo ilaa iyo xala ay madaxdu yeelanayeen maanta waxay u ahayd nasiiro maadaama madaxweynaha galmudug uu shirku intuu soo furtay kahor safar ka soo xarooday madaxda kalena ay safar ku yimaadeen maantana ay ahayd maalin Jimco ah ma la ogyahay waqtiga uu shirka bilaaban doono shirka waxaa lagu wadaa in maalinta berrito ah uu furmo inta ka horeysana ina ku dhow madaxtooyada oo xogan aan ka helnay waxay sheegeen in ilaa iyo galabta ay jiri doonaan shirar gaargaara oo ay madaxda iyagu yeelan doonaan iyagu shirarka markay yeeshaan kadibna berri lagu wada ballansan yahay in shirka weyn uu mar haddii shirka uu berri furmi doono ma la sheegay ajendaha ay madaxda ka wada hadli doonaan iyo maalmaha uu socon doonaba weli lama sheegin ajendaha iyo madaxda ka wada hadli doonaan iyo maalmaha uu socon doono laakiin shirka markii la marlayaba waxay ahayd maalmihii la ballan qaaday 2 maalmood inuu socdo laakiin markii shirka berri la furaa la ogaan doonaa ajendaha ay ka wada hadli doonaan iyo weliba inta berri uu shirkaas sii socon doono hadda waxay ku xiran tahay laakiin sida iyagu ama isu soo dhaweeyaan ama ay isugu afgartaan inay wax midameen u dhigtaan markaad fiirisid marka dhanka magaalada Dhuusamareeb oo intaasoo madaxa ay joogaan bal dadka deegaanka dareenkooda ka waran ahaan dadka deegaanka dareenkooda in maanta halkan ay wax ka dhacaan oo Dhuusamareeb la isugu yimaado oo shirar dowlad goboleedyada dhan iyo kuwa federaal iyo wax lamid ah ay ka dhacaan aad bay u soo dhaweynayeen waa waxay shalo dhan qoraxda iyo u taagnaayeen waxa kale oo jirta dadkii la socday wafdiyada qaarkood waxay ahayd deegaan barasho u ahayd inay galmudug imaadaan oo iyagana ay ahayd markii ugu horeysay waa midda maanta sababtay inay tiimam dhalinyaro ah oo la socday wufuudda iyo tiimam ka tirsan dhalinyarada deegaanka iyo iskula baxaan magaalooyin kamida galmudug sida Cadaad oo kaleeto iyo Gaalkacyo iyo meelo kale ayuu ka faa'iideysanaya nasiinada maanta shirku u galay Dhuusamareeb banaanadeeda ay ku aadaan marka dadku waa aad ugu rajo weeyeen inay waxa ka soo baxaan shirkan ay saameyn ku yeelan doonaan galmudug iyo ayada iyo waliba Soomaaliya oo dhan waa taasi waxay ahayd Nafisa Xirsi Oogle oo wariyad joogta magaalada Dhuusamareeb oo khadka telefoonka igu waramaysay bal markana aynu dib ugu laabano wararka xiriirka si xumaanaya ka dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha ee maalmahan waxa soconayay in xiriirkooda ka dhaxeeya labadaas dal ay waaweyn uusan wanaagsanayn haatan se Mareykanka ayaa cunaqabateena soo saaray talaabo ka duwan waxa soo saaray Shiinaha oo isagana uu isaga difaacayo rogaal celisa Beijing waxa ay ku tilmaantay talaabooyinka Mareykanka uu qaadayo inay yihiin kuwa aan laga fiirsan hadaba faafaynta waxa soo akhriya حسن علي جيلي وفافاينتنا هي حسن عبد الفتاح Mareykanka waxa markii hore xayiraad hantiyadeed iyo mid safar ay ku soo rugtay saraakiil sarsare oo ka tirsan dalkaasi Shiinaha kuwaasi oo xukuumadda Washington ay sheegtay inay ku lug leeyihiin xariga iyo dhibaatada loo geysanayo dadka ka soo jeeda qowmiyadda Uyghurka dadka qowmiyadaasi oo muslimiin u badan ay dawladda Shiinaha ku xirtay ama ay ku haysaa xiriir ku yaala gobolka Xinjiang oo lagu tilmaamay in dhaqan celin lagu sameeyo waxaana inta badan soo baxay eedeymo ah in dhaqan iyo waliba diin doorin lagu sameeyo dadkaasi ee muslimiinta u badan oo ay xukuumadda Beijing ku sameynayso arintaasina dawladda Shiinaha waa ay diiday saraakiisha xayiraadaha Mareykanka uu saaray waxa kamid ah Shen Kuangku oo ah madaxa xisbiga Shuuciga ee hay'adda dalkaas isla markaana xubinka 25 sarkaal ee ugu sareysa xisbigaasi iyo xubno kale oo ka tirsan qoyskiisa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu wada faragelin aad u weyn Shiinuhuna uu taasi ka argoosan doono 美方上述行径严重干涉中国内政 tallaabada Mareykanku waa faragelin adag oo xagga arrimaha gudaha ee Shiinaha ah waxayna si weyn u jabinaysaa shuruucda asaasiga ah ee xiriirka caalamiga waana mid si weyn u dhaawacaysa xiriirkii laba geesoodka ahaa ee labada dhinac si adag ayaan uga soo horjeednaa arrintan oo u cambaaraynayna Mareykanka waxaan ka codsanaynaa inuu ka laabto go'aanka khaldan una joojiyo faragelinta uu ku hayo arrimaha Shiinaha iyo waxyeelada uu geysanayo danta Shiinaha haddii US ay ku adkaysato inay jihadan ku sii socoto
ha ogaadeen in shiinuhu qaadi doono tallaabooyin kullidi ah. 执意妄为，中方必将坚决回击。 cabdi fataax usbuuc hore waxaa jiray in xukuumadaha Washington iyo Beijing ay sheegeen in ay midba midda kale ka argoosanayso eedeymo ah la xiriira dhanka xuquuqul insaanka ee gaar ahaan Tibet waxaa ka sii horeeyay xiriirka labada dhinac oo xumaanayay oo kula xiriiray cudurkan COVID-19 arrinta badda koonfurta Shiinaha iyo sidoo kale xayiraado lagu soo rogay Israa'iil ka tirsan Shiinaha arrimaha la xiriira Hong Kong. aad u mahadsantahay xasan cali geelay oo kaasi faafahinta warkaasina la socodsiinayay. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477862000 kadib waxa ay kula tahay BBC Soomaaliya. waa tahay ciyaarihi ayaa inoo soo socday weliba haatan la sameynaya isku aadka koobka UEFA Champions League balse markan aynu wararka viruska corona tagna weliba barnaamijkii dheer ayaa inoo soo socday. Koonfur Afrika ayaa waxay maanta diiwaan gelisay kororkii ugu badnaa ee hal maalin ay viruska corona. wasaaradda caafimaadka dalkaas ayaa waxay sheegtay in 13674 xaaladood oo cusub la helay 24 saacadood ee ugu dambeeyay kuwaas oo la ogaaday markii la sameeyay baaritaankii ugu badnaa ee hal maalin ah. xogtii ugu dambeysay waxay noo hayay Cabdiraxmaan Cali Dimbil. ku dhawaad kala bar kiisaska cusub ee COVID-19 ee Koonfur Afrika oo ah 6530 ayaa laga diiwaan geliyay xarunta dhaqaalaha ee Gauteng oo noqotay xudunta fayraska ee dalkaas. ilaa iyo hadda 3720 qof ayaa dhimatay waxaana la filayaa inay sare u kacdo iyadoo dalku ku sii jeedo bilo la sheegay in xaaladda fayrasku ay sii cuslaan karto. inkastoo fayrasku uu si daran ugu faafayo dalkan heerka soo kabashada ayaa si weli ku dhow 47% sida ay khubaradu taminayaan. Professor Salim Abdul Karim oo gudoomiye ka guddiga la talinta ee COVID-19 ee dawladda ayaa sheegay in dadka reer Koonfur Afrika ay u baahan doonaan inay la qabsadaan si ay ula noolaadaan fayraska. isla sidoo kalena ay sii wadaan qaadista taxadarka lagama maarmaanka ilaa laga helayo daaweyn. wuxuu sheegay in hadda adduunka oo dhan ay jiraan 130 tallaal oo kala duwan oo uu ka mid yahay kii laga bilaabay South Africa 2 toddobaad ka hor. xaaladda waddanka ayaa si guud u xayiran in ka badan 3 bilood laakiin warshadaha qaar ayaa dib u furmay isbuucidii la soo dhaafay si ay u ilaaliyaan xaaladda shaqada iyo dhaqaalaha. aad ay u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Cali Dimbil ayuu kaasi faafahinta warkaasina la socodsiinayay. goordhow waxaan idinku wareejin doonaa Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh iyo barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee fayraska corona ku saabsanaa balse markan ciyaarihii aanu eegnay waxaa goordhow la sameeyay isku aadka koobka Champions League rubac dhamaadkiisa weliba kooxihii haddii aan markan dul maro Real Madrid iyo Man City weli aan kala bixin waxa ay ku aadi doonaan kooxdii soo baxdaba kooxaha Lyon iyo Juventus oo ciyaar dhexmari doonto Leipzig iyo Atletico Madrid oo isku aadeen Napoli iyo Barcelona mid ka soo baxda waxay ka hortagi doontaa kooxaha Chelsea iyo Bayern Munich. Atlanta iyo Paris Saint-Germain waa ay wada ciyaari doonaan. marka taa waxay ka dhigan tahay in la sameeyay isku aadkii koobka UEFA Champions League. halka kale waxaa haatan lagu wadaa in la sameeyo goordhow koobka kale Europa League wixii ka soo koran idaacadaha iyaga dambe aad ku maqli doontaan balse markan aan ku wareejiyo Maxamed Raxmaan Sheekh iyo barnaamijkii gaarka ah fayraska corona maanta oo kale oo jimcaad maqli jirteen. kulanti wanaagsan dhageystayaal barnaamijkan gaarka ah waxaan ku eegi doonaa saameynta uu cudurka COVID-19 ku yeeshay cibaadada muslimiinta. waxaan eegi doonaa masaajidda dib loo furayo ee Kenya iyo shuruudaha lagu soo rogay. sidoo kale waxaan eegi doonaa xajka sanadkan iyo waxay ka dhigan tahay in malaayiin qof aysan sanadkan gudan doonin tiirkaasi ka mid ah tiirarka islaamka. balse marka hore aan dhageysano wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira fayraska corona. cudurka corona ayaa walaaciisa waxa uu ku sii kordhayaa South Africa sida uu sheegayo Dr. John Kegansong oo ah agaasimaha xarunta Afrika u qaabilsan xakamaynta cudurrada iyo ka hortagooda. waxaa jiray kor u kac ku dhow 25% kiisaska fayraska corona ee qaaradda toddobaadkii hore. dalka South Africa waaxda caafimaadka ee Gauteng ayaa waxa ay beenisay in gobolku uu diyaarinayo 1 milyan iyo bar qabri xilli kiisaska fayraska corona ay sare u sii kacayaan. waxa ay sheegeen intaasi ay tahay tirada guud ee uu qaadi karo qubuuraha gobolka
caalamka iyadoo tirada godadka la qodayn ay aad uga yar yihiin intaa. guddiga midowda afrikana waxa uu ku dhawaaqay hay-ad tijaabo ku samaynaysa tallaalada si loo xaqiijiyo sida ugu dhaqsiyaha badan ilaa iyo 10 tallaal oo maraya heer gabagaba ah. hay-addan ayaa hoos imaan doonta xarunta afrika u qaabilsan xakamaynta cudurrada iyo ka hortagooda. ugu dambayntiina waxaa jira ifafaale isa soo taraya oo saynis yahanada tusaya in fayraska corona hawada laga qaadi karo halkii markii hore la aaminsanaa in laga kala qaadi karo oo keliya taabashada qof qaba ama meel dusheed. aan ku bilaabay masaajidda iyo goobaha kale ee cibaadada ee dalka Kenya ayaa lagu wadaa in talaadada soo socota dib loo furo kadib markii ay hogaamiyaasha diimaha iyo madaxda dowladda ku heshiiyeen shuruudo lagu soo rogay dib u furidooda. Shariif Cali Shariif Cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay culimada muslimiinta Kenya ee qaybta ka ah wadaxaajoodkaasi. Axmed Nagaasho ayuu uga warramay shuruudaha lagu xiray masaajidda iyo sida loo fulinayo. shuruudihii marka hore lagu wada hadlay in la dhaqan geliyo iyo insha Allah taala la hirgelin doonaa. waxaana muslimiinta dhammaan laga codsan hayaa masaajidda gacanta ku haya in ay guddiyo gaar u ah howlahaas hirgelinta ay masaajidda lagu hirgelinayo nadaafadeedii iyo wixii maarkiisa loo baahan in la hirgeliyo inay u bixiyaan oo ay u saaraan haddii ilaahay yidhaahdo. amarada ay dowladdu soo saartee idinkuna aad hirgelintooda ka shaqaynaysaan waxaa ka mid ah in tirada jameecada markii quraaba masaajidka ku tukanaysa aanay ka badanin 100 qof. sideed arrintaa ku hirgelinaysaan ay suurtagal u noqonaysaa? magaas arrintaa in badan baa laga dooday oo laga murmay. marka hadda waxaa lagu soo koobay in muslimiintu ay taxadar muujiyaan tiro fara badan oo xadaaf ah ilaahay waa ku cariiri fara badan waxaan dhalinayna inuu nambarka uu noqdo. masaajidana ma arkaysaa sida kaniisadaha oo kale loogama tacaamuli karo yani madaxdii markii ay fadhiga sheegeen waa u sheegnay. madaxweynahana islan khudbadiisu waxay ahayd inuu ku caddeeyo duubta in loogu talagalo inay 100 qof ka badanin laakiin masaajidda maynan isku ogeyn. hadda waxaan ugu dambeyn laga yidhi xasb al axwaal sida axwaashu mar walba ay tahay in nambarka aan la badinin cariiri fara badan iyo maarkaysaa imaasho zaa'ida inuusan jirin oo sidii hore aan loo dhaqmin oo loo tacaamulin. hadda hawsha siday tahay haddii ilaahay yidhaahdo. marka haddii la rabo in jameecadu aanay aad u badanin oo aanu masaajidku buuxsamin ma suurto gelaysaa in markaa jameecooyinka la badiyo oo salaadiiba dhowr goor jamaaca lagu tukado? miyaa arrinkaasi uu sax noqonaya? lagaas wax diidahaya male. aslanba dowlado qaarkood oo hadda turkiga uu ka mid yahay masaajidda maysan xirin laakiin waxay ku guulaysteen inay shacabka ka dhaadhiciyaan inuu qof walba markaysa uu soo galo markiisa uu gooyo u tukado ama jamaacaadkii ku tukanayaan ay kala fogaadaan. marka wax diidahaya male. haddii odayaashii iyo dadkii yaryaraa masaajidii laga reebay ay dadka kala yimaadaan oo uu ku buuxsamo in dadka kale dadka inta ka tukanayaan ay ka sugaan markay soo baxaana salaada waqtigeeda wascigaa ku jira ay dadkii kala galaan. actually in arrintaas la hirgeliyana waxaa uga dagaalanay shardiga masaajidka 15 daqiiqo bis ha furnaado ama 15 daqiiqo ka hor iyo 15 daqiiqo kadib. shardiga waxaan u diinay inuusan zaxmi imaanin lianna shardiga haddii la hirgeliyo qof walba wuxuu dhahayaa daqiiqadahan bis bay masaajidku uu furan yahay. hadda se wascigaa ku jira qofkii haddii qaybta hore salaada uga soo gaari waayo jamaacada labaad jamaacada saddexaad intaba uu ka heli karaya. waxaa jirtay amarada la soo saaray inay ka mid ahaayeen in da' cayiman loo ogolaaday inay masaajidada galaan oo dadka da'da yar ee aan qaan gaadhin iyo dadka waaweyn. da'daasi waa intay ku xadidan tahay? da'daasi da'da hadda 13 jir wax ka weyn iyo 50 jir ma arkaysaa wixii ka yar baa la sheegay laakiin waxaa isugu arooraysaa qofka caafimaadkiisii. qofka hadduu caafimaadkiisii xanuuno kale uusan qabin oo cudurro kale uusan qabin naftiisa wax dhiba kuma leh. laakiin qofka hadduu xanuuno kale hore u qabay oo xanuunkana looga cabsanayo xanuunada inay ku biiraan oo deedna nafsadiisa ay halaag u geyso haweenka ma arkaysa laga dagaalamayo inuu masjidka soo xaadiro. marka hadafka ugu weyn waxa uu qofku inuu caafimaadkiisa fiican yahay hadduu xanuuno qabana waxaa lagula talinaya inuu gurigiisa uga tukado meeshiisa ilaahay ku caabudo subxaanahu watacaala. laakiin waynu ognahay dadka muslimiinta ah qofku markuu sii waayeele ee da'diisu sii korodhaba inuu cibaadada aad u jeclaado oo masaajidka uu har iyo jeer waqti badan ku qaatuu jecel yahay. dadka noocaasa sidee loogu qancinayaa marka inay ka joogaan oo la yidhaahdo 58 baad ka weydiina guryihii fadhiya? magaasi aad baan culayska u dareemaynaa laakiin waxaan wax walba ka muhiimsan nafsada ilaalinteedii. midda labaadna arrintan marxalad weeye waxaan ilaahay subxaana watacaala ka rajaynaynaa marxaladan inaan daafno oo xaaladii hore iyo jawigii hore iyo qiimihii badnaa aan kusoo noqono baan ilaahay subxaana watacaala ka rajaynaynaa. marka dadka waaweyn ee da'da ah haddii ay hore salaadaha u xaadiri jireen ama masaajidda ku ixtikaafi jireen sida xadiis saxiixa nabiga aga sugnaatay oo maanta cudurdaar kale oo asaga uusan shaqo ku lahayn ay ka diideen inuu masaajidii xaadiro ajirka sidii baa loogu qorahayaa. marka waxa weeye dowladdu waxay codsanaysa waxa weeye in taasku ay la shaqeeyaan marxaladanna ay la fahmaan si wada jir ahna inaan aga wada gudubno deedna cudurka u baabao deedna masaajidii iyo macantii iyo khayraadka ay sidooda usoo noqdaan haddii ilaah yidhaahdo.
shariif cali oo u warramayay axmed nagaashe. cudurka covid-19 ayaa sanadkan xajka ka joojiyey malaayiin qof oo daafaha caalamka uga tegi lahaa si ay u soo gutaan tiirkaasi muhiimka ah. sacuudiga gaar ahaan magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina ayaa ka mid ah goobaha uu sida weyn ugu faafay cudurka. maxamed cali biixi waa wariye muddo badan ku nool caasimadda Riyaad. khadka taleefanka ayuu ugu warramay wariyaha BBC Kawthar Maxamed. saameynaha ugu waaweyn ee uu sanadkan keenay xanuunkan corona waxaa ka mid ah saameynta dhinaca cibaadada ah ee dadka muslimiinta ah ka soo gaadhay siiba waajibaadka xajka oo dad badan oo isu diyaariyay sanadkan inay soo gutaan halkaasi ay ku hungoobeen sababo la xidhiidha xanuunka. dowladda Sacuudiguna iyadoo in badan arrintaa ka baaraandegaysay waxay markii dambe tala ku gaadhay in la joojiyo dadka dibadda ka soo xajaya. Sacuudiguna dee waa wadamada uu saameeyay siiba magaalooyinka lagu cibaadaystay Maka iyo Madiina. sida la og yahayna taariikhahan casriga ah lama sheegin inuu xajku baaqdo, inkastoo la sheegay marar hore inuu baaqday, laakiin intan dambe lama sheegin siiba intii ka dambeysay intii la yagleelay dowladda Sacuudiga ee 1932 ma dhicin in xaj laga baaqdo. marka halkana uu ka jira xanuunkiyo tirada dadka ee Sacuudiga ee imika uu ku dhacay. wasaaradda warbixinteeda maalinlaha waxay ku sheegtay in 220,000 iyo weliba dheeraad ay gaadhayaan dadka uu ku dhacay. dadka gudaha ka xajinaya iyagu ma wax shuruudo ah ayaa lagu soo rogay. waxa ugu horeeya qofka xajaya sanadkan inuu haysto shahaado caafimaad oo muujinaysa inuu ka badqabo xanuunkan, iyo marka uu weliba dhamaysto xajka qofku inuu isagu naftiisa karantiilo muddo 14 cisho ah. waxa kale oo ay dowladda Sacuudigu sheegtay tirada dadka sanadkan gudaha ka xajaya 70% in laga dhigay dadka ajaanibta ee wadankan ku nool, halka 7% Sacuudi ay noqon doonaan waliba u badan shaqaale caafimaad iyo dadka amniga ka shaqeeya ciidamada amniga ee ka bogsaday xanuunkan. dowladuna waxay sheegtay 6 bishan in qoritaanka uu bilowday website-keeda laga furay. marka waa tirada sida u yar, waxaasoo dhan inta badan lagu salaynayaa in laga hortago inuu xanuunkan sii faafo. marka dowladda Sacuudiga waxay ku dadaalaysay in badan sidii ay isu waafajin lahayd in xajkana aanu baaqan xanuunkana aanu sii fidin. laakiin waxaa laga yaabaa iyadoo taasi haddana jirto dadka xataa ku dhiiranaya sanadkan inay tagaan gudaha ka tagaan laftoodu calaamad su'aal baa ka jirta, waayo waxaa laga yaabaa tirada xataa la qoondeeyay inaanay tagin iyagoo arrimaha caafimaadka awgood walwal ay ka qabaan ay jirto. dhaqaale badan ayaa Sacuudiga ka soo gali jiray xajka sanadlaha ah. dowladdu ma ka hadashay waxa laga yeelay dhaqaalahaasi iyo waxa lagu kabayo? sida lagu qoray warbixin ay dowladdu diyaarisay, marka la barbar dhigo dakhliga gudaha 20% ayuu Sacuudiga ka heli jiray. marka waa number weyn markaad eegto. taasina waxay noqonaysaa jug kale oo dhaqaalaha Sacuudiga soo gaadhay, iyadoo markii hore laga warhayay guud ahaanba saameynta dhaqaale ee uu walwaalayay corona. haddana arrintan Sacuudiga culays dhaqaale oo kale ayay saaraysaa. dowladdu marka si ay malaha arrimaha u buuxiso waxa ay samaysay in canshuur dadka lagu soo rogo si loo kabo isdhinka xagga dakhliga ee xujaajta iyo cumrada iyo guud ahaan dhaqaalaha shidaalkii hoos u dhacay saameynta guud ee corona. marka waxyaabahaas biirbiirsaday dowladdu waxay ku khasbanaatay si uu kabto in canshuurtii la kordhiyo. marka arrinta dhaqaalaha laga yimaado, xajku Sacuudiga waxa uu ahaa haybad dhinaca diinta ah oo loo arkayay ama loo arkaba inuu ku yaalo wadnaha dunida muslimiinta ah. taasi haybad bay siin jirtay, magac bay siin jirtay, way ku faani jireen, waxayna oran jireen waxaanu nahay dad Ilaahay uu dhigay meeshii ugu barakaysnayd oo Ilaahay u doortay waliba inaanu noqono dadkii u adeegayay martida Ilaahay oo dadka xujaajta iyo cimrada. kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo u warramayay Kawthar Maxamed. dhegeystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan gaarka ah. intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waa maxamed cabdiraxmaan oo idin leedsada iyo nabadgelyo.
واتعاد يوم تسيح محمد الرحمن شيخ يوكاسيها وبرنامج كاسي قار كينا لسعود سينا بل مركنا هدي أينو نوع عياري عندي يقول لابتي كوب كي يوروبا ليج أيا لسميي سكواد كيسي هاتنك وحاو سكواد كدوران بل بقي بام كلا قاده وولفسباغ iyo shaqta tii ka soo baxda waxay ka hortagi doontaa kooxda Frankfurt ama Basel halka Inter Milan iyo Getafe kooxda ka soo baxda ay ka hortagi doonto Rangers iyo ama kooxda Bayern Leverkusen halka Olympiacos iyo Wolves kooxda ka soo baxda ay ka hortagi doonto Sevilla ama Roma Lask iyo Man United kooxda ka soo baxda Istanbul iyo Copenhagen ay ka hortagi doontaa idaacadina naga intaas nabad geliyo